بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cali xirsi kaarshe oo ku magac dheer cali kabayare halkan waxaan doonayaa inaan ku qabto gabay ama geeraar yar oo kooban oo magaciisa la yiraahdo haddaan qaaqle noqon lahaa. qaaqle waa shakhsi, qof, wiil, gabar, islaan, oday, shakhsi ku qaata lacag iyo laaluush inuu ka hadlo wax uusan xaqiiqdeedana ogeyn, runteedana ogeyn, beenteedana ogeyn, balse loo soo dhiibay oo lagu siiyo lacag si uu bulshada u marin habaabiyo. waxaa inta badan isticmaala maamul goboleedyada, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha dictatorshipka ama kalitalisnimada ah. qaaqluhu ma ahan shakhsi ama qof ama koox hadda bilowday, laakiin waxay ahaayeen mar walba kuwo ay isticmaali jireen dadka raba inay xukunka xoog ku haystaan ama ay bulshada ku maamulaan wax aysan bulshadu doonayn, balse raba inay dadka ka iibiyaan. haddaba beryihii dambe waxaad arkayseen baraha bulshada dad badan oo social mediaha soo galaya ama baraha bulshada ay ku wada xiriiraan oo ka hadlahaya ama faaninahaya ama dhaleecaynahaya dowladda, ama dowladda faaninahaya ama shakhsiyaad dhaleecaynahaya dowladda kasoo horjeeda. madax hore hadday ahaan lahaayeen kuwa aan madax ahayn, deegaamo, dad, qabiilo, ayagoo ku difaacaya dowladda nabar iyo naxdin. mararka qaarkoodna aad is leedahay ayaga ayaaba dadka oo dhan ka xiga, ayaga ayaa keligood muwaadiniina, ayaga ayaa keligood saxsan. taas oo qofkii muwaadinka ahaa waxyaalihii xuquuqdii aasaasiga ahaa ee uu xaqa u lahaa ee ah inuu waxa ra'yigiisa cabiro, inuu amni helo, inuu waxbarasho helo, inuu caafimaad helo, inuu dowladda la xisaabtamo, waxyaalahaasoo dhan ayay ka mashquulinahayaan qofka. markaasuu qofku markuu hadlo yiraahdo war sidaani waa qalad, ayaa la leeyahay waxaa tahay qaran dumis, ayaa la leeyahay waxaa tahay dowlad diid, ayaa la leeyahay waxaa tahay jaajuus, ayaa dowlad shisheeye u shaqaysaa. haddii la doono oo gacantu gaartana waa la xirayaa ama waa la dilayaa ama waa la dacayadeynayaa si magaciisa iyo sharaftiisa loo dilo. haddaba qaaqluhu warkiisu ma koobna, ma qiyaasna, wuxuu rabuu ku hadlaa, wuxuu rabuu soo gudbiyaa, life buu iska soo fariistaa, kusoo yaacu yiraahdaa, barnaamijka faafiyu yiraahdaa, isagoo dadka u sheegaya inuu bishaaro iyo khayr aan ummadda kala arkin u wado, isagoo u sheegaya inuu horumar iyo barwaaqo aan ummadda kale u jeedin, oo waxgaradku u jeedin, oo aqoon-yahanku u jeedin, oo siyaasiyiintu u jeedin, oo isagu u jeedo oo u gudbinayo. haddaba markaan qiyaasay oo yaabay ayaa waxaa igu soo dhacday maasadan yar ee gaaban ee aan u bixiyey haddaan qaaqla noqon lahaa. haddaan qaaqla noqon lahaa oo gurigeyga iska joogo oo aana shaqaysan, lacag la ii soo diro oo inta lahay soo fariisto dadka caayo oo af la gaadeeyo, qiiraadeeda iska qaato, oo aan qabow marin, oo aan dhib marin, oo aan halkaa iska fadhiya 24 saac habeen walba soo galo oo aan qayliyo, waaba barnaamij yaroo iska koobane, waaba fiicnaan lahayd. wixii laysoo dhiibana waa iska sheegahaya. maxaa iga galay? qaaqla aan ahay, maxaa iga galay? qaylaadeeda ii taagan, maxaa iga galay? shiishadaydan iska dhuuqaya, maxaa iga galay? gabar baan caynayaa, oday baan caynayaa, siyaasi baan caynayaa, madaxweyne horaan caynayaa, midkii maaragtay mustaqbal lahoo dambaan caynayaa, wax alla waxaan arko lugtaan marinaya, maxaa iga galay? haddaba waxaan idhi sida tan, gabaygan gaaban ama geeraarkan waxaa la yidhaahdaa haddaan qaaqle noqon lahaa. waxaanu ku bilaabanayaa sida tan: haddaan qaaqle noqon lahaa, laaluush qarsoon iyo qarash la isku diro iyo xaaraan la qalamsado qaylaad ma waayeen. haddaan qaaqle noqon lahaa, qoondada banaadiri kama aan qadeenoo qamanuurka layfka kama qaadi laynoo qarash baan ku heli lahaa
qabow kuma jarmaadeen. haddaan qaaqla noqon lahaa ayadoo kun qarax dhacay, farmaajaa qadeeyo qudaar iyo cambuu cunay, barwaaqaa la quusoo qaran xoog la baan nahay, qubxi kama xishoodeen. haddaan qaaqla noqon lahaa safiir baa la qaabilay, qarqarkaan u jaray qaar, qabkii baa dib loo helay, quwad weyn ayaan nahay, qaylada ma daayeen. waa waxaan dadka kale u jeedi waxaan arkaya musawiro ee lasoo dhigay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoomiye baarlamaan, guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo isla socda oo musawiro laga soo qaaday. markaasaa la yidhi tani way socotay, horey bay u socotay, waa la isla jaan qaaday, siday u sawiran yihiin, dharka ay wataan, suudadkooda, quruxdooda, siday u laafiyoonhayaan, bal arka, dowladda way socotay, cirkay gashay. waa shaksi labiskiisa iyo musawir lasoo qaaday iyo dowladnimadii ayaa la isla meel dhigay. waa qaaqlaha shaqadiisa. qolo safiir baa la qaabilaya, madaxtooyada musawiro looga qaadaya ama xalana laga qaadaya. waxa leeyahay oo safiirada dowladda caalamkii o dhan baa la isku xiray. safiiradu saasay usoo yaacayaan, saasay usoo deganayaan, saasay maarata haddii ilaahay ku runaya isku daba haystaan. qaar waa la cirshay. waxa leeyahay UN-ka xiriirkan u jarnay. waa UN-kii hadda madaxtooyada waardiyeynayay, waa amisoomta madaxtooyada waardiyeysa lacagta siinayay. safiirhe waa cayrin bashona none grand waxa weye waa qofkani waa waxaa la yidhahdaa afka english waxa lagu yihahdaa unwelcome person la yidhahda. qof aan la xushmaynayn, lasoo dhaweynayn. waa la cirshay ayaa la leeyahy. okay haddaan qaaqlan noqon lahaa safiir baa la qaabilay, qarqarkaan u jaray qaar, qabkii baa dib loo helay, quwad weyn ayaan nahay, qaylada ma daayeen. haddaan qaaqla noqon lahaa khudbad la isla jeediyo, isqalloocin badan iyo isqarfaaxin jaan iyo bushintoon qaniiniyo, qarqarada umbuuriyo, qosol la iska keeniyo, been lagu qaraabtiyo, qalad kama dhammaadeen. khudbad maanta wixii ka dambeeya maaragtay u dulqaadan mayno. haddaan qaaqla noqon lahaa waraan qodob lahayn iyo waraan qodob lahaynoo waqti qaas ah loo qaban, qumanaan dhammaanayn, wa iska qaylin laayo, qiyaastaba ma saareen, hadallada ma qaybsheen, qayladhaanta eediyo. haddaan waraan qodob lahayn iyo waqti qaas ah loo qaban. lifeka la iska soo galo 2 saacadood bu iska soconayaa, 1 saaci bar bu iska soconayaa, meeshii la doonaa lagu hadlaya, wixii la doonaa laga hadlaya, warku ma qodobaysna, kan maanta kow ka bilaabay buu ku dhammaynaya, hadalku waa iska socdo. haddaan qaaqla noqon lahaa waraan qodob lahayn oo waqti khaasa loo qaban, qumanaan dhammaan iyo wa iska qaylin laayo, qiyaastaba ma saareen, hadallada ma qaybsheen, qayladhaanta eediyo, qabqabsiga albaabada, anoon lay qadarinayn, warqabtaay ma waayeen. eedda nadiifo, warqabtaay ma waayeen. haddaan qaaqla noqon lahaa khayriya farmaaja qadar ii ahaan lahaa. waxaan ayagu ay sheegaan maan wax kale maba dhegeysteen. qiyaasta aqligayga iyo qiyaasta dadka kale oo waxgaradka ah midna ma qiimeeyeen, waaqica ma eegeen, waxay yidhaahdaan unbaa ii ahaan lahaa. haddaan qaaqla noqon lahaa khayriya farmaaja qadar ii ahaan lahaa, qowlkooda mooye danta qaran ma eegeen, qofna kama hibaysteen, dumar maan qadariyeen, waan quusin laayo, qiimahooda wacan iyo sharaftooda khaaska, qadra kama xishoodeen. oday weyna waxaa arkaysaa oo gabdhacaynaya, oo qabiil dhan u gafaya, oo bulsho dhan caynaya, oo dumarkii sharafta lahaayee soomaaliyeed iyo hooyooyinkeen iyo xaasaskeen iyo walaalaheen iyo gabdhaheenna ahaa aflagaadeynaya. kama way xishoodan. waa qaaqla shaqadiisa, qaaqlanimada wey. waayahay haddaan qaaqla noqon lahaa qoys iyo caruur iyo
reer uma qaraabeen qamka siinta jaadka iyo qaaca shiishadoon debin qurun kama dhammaadeen si qayilla reerka uma shaqo tageen ilmihii qoys kama warqabeen qaylaadeeda laysoo diraya wixii rabaa iska sheegaya haddaan qaaqla noqon lahaa taariikhda qoran iyo rag waxay qabteen iyo halkii qarankan laga helay wixii wiil ku quur go-ay qalibaad wixii dhacay qalbigaba ma geliyeen anaa kow isqorila laga bilaabo maantay muddo 27 sana muddo 28 sana muddo 30 sana Soomaaliya sidaas ma helin dawladii ma jirin wixii ka horeeyay nabadii nolol laga bilaabo maantay waa saas laga bilaabo maantay laga bilaabo annaga laga bilaabo dawladeen wixii wiil ku dhintay wixii dagaal la soo maray wixii rag ku qurgacay wixii dawladdan dad la isku keenay heshiis iyo dib u heshiisiin wixii la qabtay waxba kama jiraan haddaan qaaqla noqon lahaa taariikhda qoran iyo rag waxay qabteen iyo halkii qarankan laga helay wixii wiil ku quurgo-ay qalibaad wixii dhacay qalbigaba ma geliyeen anaa kow isqori lahaa haddaan qaaqla noqon lahaa quwadaha shisheeyaan khayraadka kaydka qiyaaslii u boobo qaata oran lahaayo ka qaraabta dhehila anna shilimo ii quba saxiixana ma qariyeen ilaa ay ka quustaan qalad weeye kii dhaha qabqabliyo dagaal wade qaran dumisku oran lahaa haddaan qaaqla noqon lahaa baddaa qirada weyn ee qaadirkayna siiyaan qayb aan u leenahay qiimo aad u jaban baan qoomka dunida ugu badan quwad aniga online ka qaraafta dhihi lahaa shiinahaan u saxiixi lahaa markaan shiinaha u saxiixana dawladda waxaan dhihi lahaa intaa doontaan ka qaata ana xoogaa yar isiiya ayaguna baa malaayiin shiinaha waad ogtihiin yaa 2 billion bay kusii socdaan 30 iyo dhowr kambani baa loo saxiixay inay badda Soomaaliya ka kalluumaystaan halkii kambanina waxaa la yidhi ilaa iyo waxaa la yidhahdaa 150 kambani oo kale uu sii siiyey kontraad kuwo kalena waa sii siiyey ilaa ay 4,000 oo markab ku dhowaad baa badda Soomaaliya ka qaraafta kuwa jeelaabta weliba maaragtay isheeg oo aan waxba reebin maxaa la yidhi waxa la baxshaada maxaa la yidhi 30 milyan ayaa la bixinaa sanadkii nothing hal markab keliya qaada markaasaa qaaq la dhihi lahaa shiinaha lacagtii ugu horreysaa laga helay badaha kalluumaysiga Soomaaliya shiinuhu intaasay baxsheen 3 milyan bay bixiyeen 2 milyan bay baxsheen ayuu dhihi lahaa markaasuu difaaci lahaa u dhihi lahaa horey ayaa loo socday waa hagaag haddaan qaaqla noqonaa badda qirada weyn ee qaadirkayna siiyaan qayb aan u leenahay qiimo aad u jaban baa qoomka dunida ugu badan quwad aniga online ka qaraafta dhihi lahaa annagaa qof moodnee alla qaaqla liite qiimihiisu darana qurunkiiyo xumaantana ileen waaba quudkood iyo qada ay cunaanoo dhammaantood ileen qada ay cunaan bay dhammaantood ku qiimaa alla qaaqla liite qiimihiisu darana qurunkiiyo xumaantiyo ileen qurunkiiyo xumaantuna ileen waaba quutaan ileen waaba quudkood qada ay cunaan baa dhammaantood ku qiima halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa garaarkii yaraa ee qaaqle aad iyo aad ayaana u mahadsantihiin wixii ka dhiman adinka ayaa ku dari doona wixii kale ee aad ku siyaadinaysaana waa commentiska hoos kusoo qora channelkan aniga aan leeyahay ee la yidhaahdo Cali Xirsi official channel subscribe de like tana ha iloobin gambaleelkana furo ama beelka ama jalaska hadda sidaad u taqaanid jalaska furo si uu fariimuhu kugu soo dhacaan waana idin salaamayaa oo aniga Cali Xirsi idin kaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh